بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال maanta waxaan ka hadlaynaa oo ka jawaabaynaa su'aal ah faqriga ma la yareyn karaa mase laga bixi karaa. saynu wada ogsoonnahay faqrigu waa wax aad iyo aad u xun oo u dhib badan. nabigeena calayhi salaatu wassalaam inuu xun yahay waxaa kuugu daliila ilaahay ayuu ka magan geli jiray allahuma inii acuudu bika min alfaqri buu oran jiray. waxaa kaloo cali bin abi daalib laga wariyey radia allahu canhu inuu yidhi low kaana alfaqru rajulan laqataltuhu, waan dili lahaa. faqri ummad lagama wada dhammayn karo oo mar walba ummad kasta qof faqiira waa laga helayaa, laakiin waxaa la yareyn karaa faqrigaa isaga ah oo wax ummado faqri u ah baa ummado kale waxay u yihiin inayan faqiir ahayn ee dad wax haysta ay yihiin. taas marka oo ay jirto oo ilaahay uu yahay midka subxaana wa tacaala dadka ama faqiirka ka dhigaya ama risiqa u waasicinaya, haddana faqrigu wax la jeclaysto oo lagu hamiyo oo in la dhex joogo oo wax fiicana ma uusan aha. nabigeena calayhi salaatu wassalaam ayaa waxa u yimi ninkaasoo baryey asxaabtiisa isagoo la jooga. ninkii nebigu wuxuu ku yidhi markuu arkay nin xoog le inuu yahay, wuxuu ku yidhi gurigaaga wax ma yaaliin? haa buu yidhi, maxaa yaalla? go' buu yidhi aan qaybna ka huwanno darin oo kale ah, darin noo ah oon huwanno, qaybna aan ku seexanon iyo xaaskayga, qaybna aan huwanno iyo koobaan wax ku cabno. alaynaa gurigaas fakri baa oolaa, fakri weyn ayaa oolaa. marka nebigu wuxuu yidhi ii keen labadii shay buu u keenay. labadii markuu u keenay ayuu wuxuu ku yidhi yaa gadanaya asxaabtii nebiga intuu kor u qaaday. nin baa wuxuu ku yidhi waxaan siisanayaa 1 dirham. 1 dirham waa iska 1 shilin ama 1 riyaal ama 1 dollar, adigu wax noocaas oo kalaa wa. marka yaa kaloo wax ku daraya buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam. nin baa wuxuu yidhi 2 dirham ayaan siisanaya. nebiga calayhi salaatu wassalaam alaabtii buu ninkii siiyey, 2dii dirhamna ninkii alaabta lahaa buu siiyey. wuxuuna ku yidhi dirham cuunna ugu gad reerkaagii, dirhamna waxaad soo siisataa faaska qoryaha lagu gooyo birta madaxa kore soo siiso. tii buu ku soo gatay. iina imow buu yidhi, waa u yimi. nebigii qori yar buu soo qaatay, qorigii buu wuxuu geliyey birtii, faas buu uga soo saaray. wuxuu ku yidhi duurka gal, qoryo soo jabi, gad, 2 usbuucna yaanan ku arkin. ninka sidii buu yeelay. 2 usbuuc ka bacdi nebigii uu ku soo noqday, ninkii oo dhar fiican wata, ninkii oo 10 dirham wata. 2 dirham bay ahayd wixii alaabtiisa u goysay. ninkii cunno reerkiisa u gaday. marka nebigu wuxuu tusay calayhi salaatu wassalaam in qofku inuu waxbaryo ay ka fiican tahay inuu shaqaysto si uu uga baxo baahida uu dadkaas u qabo. qisadan iyada ah waxayna tusaysaa in qofku kaga bixi karo faqriga inuu wax qabsado isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaranaya. lagagama bixi karo faqriga baryo, inaad dad adiga ilaahay adigoo kale oo bashara inaad gacanta u horsatid ama aad ku hamisid wax jeebkooda ku jira. laakiin mar walba ma aha ee mar dantu kugu khasbayso ayaa jira. qof dumara oo carruur ay agoona haysata oo aan shaqo haysanin, hadda inay wax barido wax kuma jabna. qof indhahala, qof macnaha dhexdiisi laxaad kala dhiman yihiin, waa loo bannaan tahay inuu wax baryo. laakiin qof xoog leh oo shaqaysan kara oo shaqo heli kara, baryadu waa ka xaaraan. intaa markaan ka soo baxno waxaa isweydiin leh sidee baa faqriga looga bixi karaa ama loo yareyn karaa? kow, qofku waa inuu dadaal muujiyaa. ilaahay isagoo tala saaranaya waa inuu dadaalaa. wixii uu heli karo oo tabarana isu geeya ama maala ama caqliya si uu uga bixi lahaa faqriga
isaga mideeda kale waa inuu qofkii qorshe oo fakriga uga baxayo uu samaystaa oo qorshe la-aan meel lama gaaro qorshe waa inuu samaystaa waa inuu tan saddexaad waa inuu qofkii wax bartaa oo markuu qofku wax barto waxa u muuqanaya albaabada uu wax ku kasban karo hadduu af carabi yaqaano ama ingiriis yaqaano dadka baro hadduu xisaab yaqaan dadka baro hadduu wax dhisi yaqaan wax dhiso hadduu koronto ka shaqayn karo hadduu ma garanaysaa wax saacadaha kharaabay hagaajin karo hadduu miis samayn karo ama kuraas haddii raadiya xumaaday uu samayn karo ama telefishon ama ma garanaysaa muxuu aha combyuter waxaasoo dhan sanca la yihahda ama farsamo marka farsamadu marmarka qaarkood waxay ka fiican tahay qofka jaamacadda ka baxay waxaa ka fiican qofkan farsamada yaqaana sababtoo ah qofku markuu jaamacad ka baxo waxaa la weydiinayaa ama iskool ka baxo maxaad khibrad leedahay sidoo kale dhankaasu waa qofkii baynu ka hadlaynaa laakiin sidoo kale dowladaha ama maamulada waddanka ka jira waxaa laga doonayaa inay qorshayaal dadka fakriga looga saaro ama lagu khafiifiyo ay sameeyaan maxaa yeele dadkan ay u dhaarteen inay wax u qabtaan maaha inay ka shaqaystaane waa inay iyaga u shaqeeyaan marka faqiirkaas gaajaysan qofku waa inuu markuu baarlamaanka ku jiro ama wasiir yahay ama madaxweyne yahay waa inuu ka fikiraa sidoo kale dadka tujaarta oo waddanka ilaahay wax siiyey oo dadkan shacabkan ka dhex shaqaysta ama xawaalad ha ka shaqaystaan ama teleefono ha ka shaqaystaan ama wax soo saar ha ka shaqaystaan ee ummaddan ku nool waxa ay shaqaystaan wax ka mida waa inay ku soo celiyaan ummaddatan oo weliba maaha inay maalin kasta siiyaan cunno ay quutaan ama yidhahdo anuu zakadii waa bixiyey anuu sadaqaan bixiyaa intaa keliya maahee inay shaqo u samayn waa inay sameeyaan si berri qofkii maanta shaqada u samaysay berri kugu soo noqon maayo sida matelka ama maamaada shiinuhu ay leedahay ibarsaan kalluunka u dabto ee haysiinin kalluun maanta haddaa isiisay berriyaa isiinaya laakiin haddaa ibartay sida kalluunka aan u daban lahaa hadda markaas waxbay waa kaa kaaftoomaya marka waxaa la dooni inay mujtamacu u garbaha isqabsado gacmaha isqabsado oo dadka liita lasoo qaado mujtamacii marka kor buu u wada kacaya laakiin marka la yidhaahdo kaaso dadkii buu ka haray ee ha lagu tunto oo ha laga leexdo oo yaan waxba la siin oo yaan marmarka qaarkood in wax lagu siiyo waxaa uga baahan tahay in wax lagu tuso oo wax lagu sheego oo soomaalidu waxay yidhaahdaan in badan baad aragtaa qof wax ku siiyey laakiin in yar baad aragtaa qof wax kuu sheegay markay asxaabta nabigeenu ay maka kasoo hijroodeen oo madiine ay yimaadeen cabdiraxmaan ibnu cawf nin baa lala walaalayay asxaabtii ka mid a ansaarta marka gurigiisii buu geeyey wuxuu yidhi walaalo wax kastoo aan haysto nus qaado wuxuu yidhi ilaahay ha kuu barakeeyo maalkaaga ahalkaaga laakiin dullanii cala suuqi ibar itu igey suuqii buu geeyey wuxuu noqday asxaabta nebiga kuwa ugu qanisan marka marmarka qaarkood qofka gacanta la qabto wax loo sheego la waaniyo ayuu laga yaabaa inuu kaga kaaftoomi karaba inaad wax siisid inta ayaan kusoo koobaya warkayga wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.